بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد aad baan u salaamaya ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan waxaan leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh magacaygu waa Xasan Gamaadiid waxaan rabaa halkaan inaan kelmado kooban ka soo jeediyo kelmadahaas oo daba socda ayaamahan hawshii jirtay baraha bulshada haysatay Soomaali oo dhan ka xanaajisay si gaar ah u taabatay dadkii qarannimada Soomaaliya mugti weyn ka qaatay ay dhibtay hadalladii arkiwaaga ahaa dhacay ka dhacay gobolka Mudug ee magaalada Gaalkacyo arrintaas oo ahayd kowda Luulyo arrintaas oo arrin laga wada xumaaday ahayd arrintaas oo meel lagu xusayay halyeeyadii Soomaaliya ama ka soo jeeday gobolka Mudug oo markaas nasiib u yeelatay in lagu qabto waxa la yiraahdo kowda Luulyo inuu madaxweynaha Puntland tiriyay halyeeyadii gobolka Mudug ka soo jeeday nasiib darro inuu ka tagay Maxamed Cawaale Liibaan halyeeyadii Soomaaliyeed falcelin badan oo aad u fara badan ay Soomaali badan ka samaysay arrintaas haba u badnaado ama ha ka xumaadeen dadka ugu badnaada haba ahaadeene family-gu ka soo jeeday waxaan ka mid ahaa dadkii sida qiirada badan oo maaragtay uga xumaaday anoo carada weli igu jirto iyo aniga intii la mid ahayd waxaan dhageystay maanta madaxweynaha hadalkiisii amiir maxamuud amiirka tolka jecel Soomaalinimadu ku weyn tahay ee amiirka reer khalaf haddaan kasii gudbiyana amiir Soomaaliyeed ah ama amiir majeerteen ah inuu maantayto madaxweynaha iyo tiimkiisii ama golihiisa wasiirada ama baarlamaan ha ahaado iyo Soomaali weyn inuu u sameeyay qado in madaxweynaha arrintaas ismada Puntland ku gobolka Mudug ay kala hadleen laftirkooduna ka xumaadeen in Maxamed Cawaale Liibaan la xusi waayo xusitaankuna ma aha in lagu sheego ma ahana waxa weeyaan halyeey markii la dhaho kuwii dalka Soomaaliya soo halgamay buu ahaa adoo calaa kulli xaal madaxweynuhu wuxuu ka ballan qaaday inuu arrintaas ka xun yahay soo dhaweynayo wax walba oo maaragtay xalka ku imaan karo maantana uu hadlay madaxweynuhu halyeeyadii Soomaaliyeed inuusan xusinina wuu qiray uusan ka tegin uu ka tegay sida ay soo gaaraysana xumaan uusan uga teginin waa ay soo gaartay waxaan leenahay marka amiirka laftirkiisuna waa hadlay oo beesha Maxamuud Ibraahim wuu la hadlay waxaan leenahay amiirka iyo madaxweynaha labadiinaba aan soo dhaweynaynaa siiba amiir maxamuud si mug leh oo qoto dheer ayuu u hadlay amiir waxaan leenahay abaalka waa ku haynaa kamaalka iyo sharafta iyo qiimahaas aad noo gashay ama noo ogtahayna waa ku haynaa waana kaaga hambaliyeynaynaa madaxweynuhu inuu maanta Maxamed Cawaale Liibaan inuu ka tagay inuu qirana ayadana waa soo dhaweynaynaa marka waxaan leeyahay bulshada Soomaaliyeed meel walba ay joogto halyeeyada Soomaaliyeed waa isku mid cid doonta u dhashay qofkii wadankan Soomaaliya anfac u leh qof walba oo Soomaaliyeed baa ka xumaanaya in la xaqiro qof Soomaaliyeed ogolaanayna ma jiro waxaan leeyahay meel walba la joogo Soomaalinimada ayna deeqaysa Soomaalinimada ayna ugu filan ehel iyo qaraabana waxaan ku nahay waa Soomaalinimada inaan xoojino waxaan leeyahay ayaamaha waxa socday baraha bulshada falcelin arrintan ilaa 3 habeen 4 habeen way socotay in halka lagu joojiyo sida amiirka uu codsaday waan la sii wadwadinin in halka lagu joojiyo insha Allah taala hadda Soomaaliya oo dhan baa arrintaas ka xumaatay madaxweynaha laftirkiisuna inuusan arrinka sax ahayn wuu qiray marka aad baan idin salaamayaa
amiirka waxaan leeyahay amiirkii jira oo Soomaaliya cadaaladdu waa ku yarta Soomaaliya Allah ha kaa yeelo waana kaaga mahad celinaynaa sida aad u ogtahay dadkaaga ehelkaaga ama aad garwaaqsan tahay wax walba oo jira dad yaqaan dhiifoon baa tahay waan ku salaamayna. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.